السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين أمنا يوم مركله عاود الله سبحانه وتعالى وكرر للنقضة كيدز تايم عاو إن وحنا ذاقينا لبا قضب أو كيدز سيفتي متقنا ما شاء الله تبارك الله أيام ذاقينا مركب قضب كواد أن ربنا ولا له سوماليات ميل والجوكتان بمر لبعض مرصد حاد ورتآدي هذا أدين سلامة يا إلهي سبحانه وتعالى أنا إذن كبوح إلهي أنه غبر يا إنه إلهي سبحانه وتعالى أنه إرساقه عافماد أنكو عباديسنو إنو الله السماوات ونو إرساقه مدة كلانا ميل الله لي ماشي أن جوجنا بإنو إلهي سبحانه وتعالى ونبتقليا نقصيو أي إلهي سبحانه وتعالى أن ويديسننا أما بعده ما أنت وحا أن ربا ولا ليالو إن إذن لو ذاقو الله أكبر كبيرة إلهي ربي الرحمن الرحيم ميل الله لي ماشي جوجان بأولاد الصوماليات ربي ونو حفدي ونو إلالي أنا وحبا ما قبان كرنو وحبنا ما إلالين كرنو لكن انتي أودينا إنا متقانا استاغنو أيان أباهنهاي إلهي سبحانه وتعالى نحويدي سننا إنو هوي والبقو صوماليات إلهي سبحانه وتعالى وقعن سيو أو قرب سيو إداس المعرر ميشا أكون نوشهاي هدي آد صوماليا سالكيدا جوكتد إيو هدي آد متقانا إن ودمدان قربها جوكتد با سببتو الدنيا دو إسلا سعطا فسهاتكي ولا ليالو آد بو متقانا إن وفربطي تليفوندي تيفيدي محلها فيلمانتي وحياو فربضان أو حنحن oo mataqaanaa dadka indhahooda iyo qulubtoodaba wasaqeynaya ayaa aad iyo aad u badan marka caawa maxaan hadaan umumna ahay meel baa ka kulushahay maqal jiray xageen ka kululahay caawo oo aan rabaa mataqaanaa aan ka caraysnahay xaqiiqadii gabar walaal ah ayaa waxay ila wadaagtay qisa ay ila wadaagtay iyadoo markaa su'aal iga weydiinaysa waxa ay ka qaban karto iyo waxa ay ka sameyn karto hadaba qisadu maxay tahay marka hore qisada ayaa idin hormarinaya kabacdina labada qodob ee safety-ga ku saabsan ilmaha qaabka aan oo la dhaqmi lahayn si ay u fahamtaan caawa topigeena meesha uu u jeedo اللهم صل على محمد قصدا waxay tahay walaal Soomaaliyeed ayaa wiilkeeda oo 7 jir ah idin ma sheegayo meesha ay joogto laakiin waa wadamadan qurbaha weeyaan wadankeennina way ka dhici kartaa wiil yar oo 7 jir ah ayaa maalin maalmaha kamid ah inta hadda ay mataqaana waqtiyada iskuulaadka ay xiran yihiin ay ahayd ayuu intuu yimid ayuu wuxuu ka dhunkaday afka in Allah la yastahi min alhaq ha ilmaha uu ku dhunkan karaa dhabanadu ka dhunkan karaa laakiin dhunkashada nafsadeeda ayaa waxay kala tahay mid mataqaanaa ehelnimo ah iyo mid mataqaanaa edeb darro ah ayay kala tahay marka way ka yaabtay cunuga qaabka iyo sida uu mataqaanaa u akti gareynayo oo uu u dhaqmaayo ay aad iyo aad mataqaanaa hooyadaas oo la yaabtay كبعدي هويدي ما شاء الله waxay wareysatay cunugii why are you doing this maxaa saan u sameynaysaa waa maxay sidan xagee ka keentay cunugii marka wuxuu u arkay arin iska caadi ah oo allowed ah oo mataqaanaa aan waxba ahayn ayuu u arkay wuxuuna la mataqaanaa wadaagay hooyadiis in ay arintan arin caadi ah tahay macallimadiisa na ay cunugan mataqaanaa 7 jirka ah mar walbo ay sida u dhunkan jirtay عجيب سبحان الله هدبا ولا ليالو arrimaha noocaas ah waa dhici karaan adduunyadana waa ka dhacaan in badan way dhacdaa waalid og oo indhihiisa mataqaana ay u furan yihiin waxyaabo ka waaweyn dhaca in mararka qaar kood ilmaha la reeb gareeyo way dhacdaa oo ilmaha la xooga way dhacdaa in ilmaha qarsadaan way dhacdaa in ilmaha mataqaana xadgudub fara badan oo xagga ilmaha ku dhaca ayaa jira اللهم صل على محمد إله ربي الرحمن الرحيم والدنيا آخر بنا أستر أولاد الصوماليات دبك جارميل الله لي مش جوجان إله ربي الرحمن الرحيم محلي هذا الرنتو ذا وفض ذا أو صقر ومد استكتسي يا ربي اللهم صل على محمد حقيقة الرنتن مركان إذن الله الله حتى وحيد أنا little bit come down إن إذن الله الله لكن يقسم ويدي أنا جو متقنا ولا شيء إذا أرنت كل عضي لا عريسن يعني متقنا إذين سو قلي رايد أفدر مركي متقنا ولا أرنت إلا وذاكتي أيام حاجة عريستي وأنا أشيء إن إذين كان إذن لو ذاك دونه لكن أنا شيء إن مقعد هذا يمشي يجوكتو يا شخص ذا تايم بتكوننا حتى بقول عليها لو محاكي قبل كرنا أرمها نوع عاسا وحنا إسكا ويدينا هدي أنها والدك Soomaaliyeed in intee la eg ayaan ka ognahay waa wada ognahay waxyaabahaas iyo waxyaabo qaab daran iyo waxyaabo ka daran ba mataqaanaa inay meelo fara badan ay ka dhacaan iyo dad fara badan guryahay ka dhex dhacaan
iskuulaadka ka dhexdhacaan maxaa la dhahaa meelo fara badan oo bulshooyinka isugu yimaadaan ayaa ka dhexdhacaan laakiin anaga aas hooyo maxaan ka qaban karnaa marka su'aasha jawaabteedii ayaa waxay tahay hooyo maxaa ka qaban kartaa arintaas ha cunugaaga lama joogtid laakiin waxaa la rabaa cunugaaga fikirkaaga caqligaaga tababarkaaga intaba in ay cunugaaga la joogto ayaa la rabaa marka hore uu cunuga 2 sano uu jiro wadamadan hadda aan joogno cunug walba oo ka go'a dheebarka ka go'a oo 2 jir ah wuxuu yaqaanaa meelaha laga taaban karo iyo meelaha aan laga taaban karin siyaabaha loo taaban karo iyo siyaabaha aan loo taaban karin intaba marka cunugaaga waa in aad kala hadashaa waxyaabaha okay ah qofkee meeshaan taaban kara in qofkaan cunuga masquusha inaan lala isticmaali karin inaan mataqaanaa aan underwearkiisa mataqaanaa aan la taaban karin inaan mataqaanaa cunuga aan loo soo dhowaan karin in aad cunuga kala sheekaysato in aad su'aalo ka weydiiso inaa mataqaanaa open cunugaaga uu ku yahay adii cunugaaga communication furan aa leedihiin inaa mataqaanaa cunugaaga waxyaabaha ceebta ah uu yaqaano waxyaabaha ceebta oo dhan inuu cunugaaga uu yaqaano oo hadhow haduu meel kala tago oo lagu soo xadgudbo cunugaaga intuusan irida ka bixin hadii lagu soo xadgudbo shay alaaliya shaygii uu guriga kaga soo bartay walaalayaalow in ay ceeb tahay uu kaga soo bartay oo la yiri ceeb waxaan ma sameyn kartid ceeb waxaan waa khalad ceeb waxaan ma taaban kartid ceeb sidan uma socon kartid intaba cunuga waxay la noqon doontaa strange ay la noqon doontaa wax ku cusub baa markii loola imaado ay u noqonaysaa laakiin cunuga haduu iska koro caadi mataqaanaa hooyadii ay u hagaajiso waxba aan loo sheegin waxba aan lagala hadlin uma malaynayo waxaan asaga dib loo geysanayo lama noqonayso ama xadgudub asaga lagu soo xadgudbayo lama noqonayso xaqiiqdiina waa xadgudub aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn weeyaan oo mar walba dhaca meelo fara badanna ka dhaca marka hooyooyinka Soomaaliyeed hadii aan nahay ama qurbo aan joogno ama Afrika aan joogno annaga waxaan laga rabaa this is our job shaqadeena weeyaan waa hooyada shaqada u qaaska ah weeyaan ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso xagee laga taaban karaa xageen laga taaban karin how many feet baa qofka u jirsan kartaa yaa ku hagareyn karaa maxaa tahay ma waxaa tahay wiil baa tahay mise gabar baa tahay intaba mataqaanaa inaa cunuga wuu garanaya inuu wiil yahay inuu gabar yahay wuu garanaya laakiin in aa wiilashii aa u barto yay u dhowaan karaan yay taaban karaan taabasho intee la egaa la taaban karaa intaasoo feed ma lagu soo jirsan karaa relationshipka cunuga inuu barto oo ay ka dhaadhacsanaataa la rabaa oo uu ogaado saas oo kale gabadhaada ayadana intaa in la eg mataqaanaa inay ogaato oo ay barato oo ay ka warqabta ayaa la rabaa oo cunugaas wax qasab ah gooni waay laakiin wax dayaca cunuga inuusan ku dhicin oo cunuga uu aware u ka yahay marka waxa qasabka ah dhaqso ayuu mataqaanaa cunugaas uu sheeganaya oo waxa qasabka ah maxaa la dhahaa ma qarsoomaan laakiin cunuga wixii uusan u garanaynin oo ay la tahay caadi ay la tahay in lagu soo xadgudbo 7 jir waa yar yahay waana weyn yahay xaqiiqdii oo waxyaabo badan oo cunuga 7 jirka ah uu ka warami karaa sheegi karaa ka hadli karaa agti gareyn karaa ma sha Allah tabarakallah marka laakiin maxaa la rabaa in uu guriga Soomaaliyeed uu ka helo aabaha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed inuu ka helo in uu cunuga akhlaaqdii banaanka wixii uu iskaga daafici lahaa ruuxii ku soo xadgudbo wixii uu iskaga daafici lahaa cunugii in la siiyo ayuu u baahan yahay indhaha in loo furo u baahan yahay oo fikirkiisii cunugii mataqaanaa uu indhihiisa ay u soo jeedaan u baahan yahay inuu u garan karo waa abuse waa qayb ka mid ah sexual abuse-yada way badan yihiin marka aan ka hadli doonaa marka this is waxyaabaha la isku dhahay kamid tahay sexual abuse-ka waxyaabaha la dhahay kamid tahay oo ah ama dhunkashaha ahaata ama taabashaha ahaata ama xoogida ahaata ama khalad ahaato wax allaale iyo wixii ku qaldan ee cunugaaga inuu sheegan karo in uu sheegan karo cadaysan karo si right away wax looga qabto laakiin cunugii hadii uusan u fahamsanayn waxa ku dhacaya inay xadgudub ay tahay hadii uusan u fahamsanayn waxba kuma u sheegan karo marka uu qofkaas uu wax ogaado waalidkaas markuu wax ogaado waxay noqonaysaa waqti ka tagay ama waqti aan waxba laga qaban karin ama 10 years later cunugii markuu weynaado oo adduunka u kala baxo oo wixii uu kala fahmo ayuu wuxuu garanayaa waqtiga ayada ah haduusan bahilmaaminba in qaabka noocaas loola dhaqmay marka waxa u baahanahay waalidiinta Soomaaliyeed
waxaan nahay dad islaam ahaan nahay wax alaali iyo wixii munkar ah oo gacantaada aad ku tirtiri karto waa inaad gacantaada aad ku tirtirtaa oo aad ka hortagtaa oo aad ka hadashaa marka si aan ilmaheena aan loogu soo xadgudbin oo hooyo walba aan ilmahaaga lagaala hoos bixin iskuula u dirtaa meela u dirtaa meelay participate gareeyaan gurigaaga way ka baxeen gacantaada way ka baxeen laakiin waxa u baahan tahay inuu fakarkaaga inuu raaco caqligaaga inuu raaco taladaada inay raacdo ayaa u baahan tahay oo cunugaas cunug buuxo cunuga gurigaaga ka baxaya marka uu yahay cunug buuxa inuu yahay oo right iyo wrong ay u kala saaran tahay inuu yahay ayaa u baahan tahay ayaan kulligan u wada baahannahay marka waa mar walba waana daily waa ina ilmaha mar walba aa xasuusisaa ay ku koraan aa kala sheekaysataa aa kusoo dhaweysaa sida mataqaanaa xataa markaas uu yaryahay marka aa kusoo bilowdo wuxuu baranayaa maxaa xaaraan ah maxaa xalaal ah sababta maxay tahay waxyaabaha ilaah subxaanahu watacaala uu ka yiri aa mataqaanaa aa u sheegto in mataqaanaa salaanta la isa salaamaya maxay tahay qaabka loo dhaqmaayo maxay tahay qaabku qofka isku asturayo maxay tahay qaabka uu qofka waxaan oo dhan meesha aad ka keenaysid marka cunuga marka uu jiro 2 years marka uga soo bilowdid yes waxba ma kala garanaya isleenahay laakiin xaqiiqdii wax uu kala garanaya wax badan uu kala garanaya wuu record gareynaya maalinba maalin sidoo u wado maalinba maalinta ka dambayso maalinba maalinta ka sii dambayso sidoo u wado marka dambe cunugaaga wuxuu noqonayaa mid mataqaanaa wax alaaliyo wixii ay u sheegaysay oo dhan biidnillah kama wada tagayo waxbuu ka qaadan doonaa 70% xataa ha ka qaato waxbuu ka ogaan doonaa laakiin adiga waxa laga rabaa waxyaabaha sensitive-ka ah in ay ilmaha kala hadasho haday teenage yihiin in ay kala hadasho laga rabaa oo u gudbiso mataqaana hadda ilmaha aan ka hadlayo waxay ahayd ilmaha mataqaana yar yar aan wali waxba kala garanin hatta ilmaha dhexe 10 sano iyo waxa ka weyn waa ina mataqaana iyaga laftirkooda da'da baaluqa soo gaarayo waa ina iyaga laftirkooda kala hadashaa siyaabo badan waa ina oo la hadashaa waxyaabaha dhici kara what if sidan haday dhacdo sidee uga gudbaysaa waa ina uga hadashaa waa in aadan waxyaabaha xaq ah aadan mataqaana aadan ka xishoonin waa ina ilmihii mataqaana xataa qaabka isu daahirin lahaayeen qaabkii waa in alaaliyi intay diinta islaamka qabto waa ina ilmahaagi mataqaana u gudbin karto oo aa bari karto oo ku tarbiyeyn karto sababtoo mas'uuliyadaas aday ku saaran tahay cunuga markuu mataqaana intaas uu yahay in uu wax walbo oo blo aadmiga mataqaana ku taxalluqo diintiisana ay raali ka tahay iyo waxa ayna raaliga ka ahaynba in uu cunugii uu kala ogaado oo uu kala fahamsan yahay marka hooyada waa macalinka koowaad ee ilmaheeda adiga ayaa waxa u tahay macalinkii koowaad ee ilmaha qodobkii koowaad ba waxa u maleysaa inaan aad iyo aad aan ugu dheeraaday ahayd sida ilmaha loo bari karo marka haddana biidnillaahi baari waxaan u gudbayaa qodobkayga labaad oo ah hadayba dhacdo maxaan ka qaban karaa you gotta report it hadii aad joogtid wadamada wax laga report gareyn karo waayo halkaas cunug kaliya kuma dhicin waxa ogaataa hal cunug markay arin meel ay ka soo baxdo inay 100 cunug oo ka horeysayna hortiis ay meeshaas ay kaga dhacday 100 ka dambeysana ay ku dhici doonto marka waa ina cunugaaga u istaagto ilmaha kale tana aa u istaagto waa ina report gareysaa wadanka sharcigiisa wuu ku helb gareynaya meelo badan oo ka report gareyn karta ayaa jirto waa report gareynaysaa booliska ka report gareynaysaa waxa ka report gareynaysaa iskuulka ka report gareynaysaa waa la baara cunuga waa laga hadashiina su'aalihiisa dhan waa laga jawaabaa marka cunuga sheekadiisa dhan la helo ayaa mataqaana in qofkii loo gudba xataa asaga inta aan la weydiinin waxa laga yaabaa hada qisadan abaayo ay ila sheer gareysay oo kaleeto marka aan ku noqdo cunuga 7 jirka ay arinta ku dhacday markii cunugaaga adiga aad qoliyaha sharciga qaabilsan aad u sheegto inuu cunugaaga abiyuuskaas uu taabtay annaga hadda waxa laga yaabaa inaan leenahay macallimadu waa naag inaan leenahay laakiin dadkan qaar baa bedelan oo si soo bedela we never know Allahu a'lam waxa uu yahay ma garan karno nin iyo naag waxa uu yahay ma garan karno nin iyo naagna waaba isku mid ba hadda marka mataqaana wadamadan qurbaha waxyaabaha ka dhaco waxyaabo badan oo nin iyo naag isku mid yihiin jiro iyo marar aadan kala garanaynin bayaan nin ayaa naag ah Allahu a'lam Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala yaqaano laakiin meesha aan u baahanahay waxay tahay in report gareyso oo aad sheegto oo arinta ka kululaato oo aad kor u qaado xad gudubka cunugaaga aadan qaadanin
cunugaaga kaliya ma ahe ilmo kaloo islaam aha laga yaabaa inay mataqaanaa cunugaa meesha kula jiraan ama kaga dambeeyaan ama kaga horeeyaan ama ilmaha kaleeta ee ha ahaadaanba xataa ilmo yar oo dhanba waa saqiir oo dhanba marka adiga inaa u istaagto oo wixii dulmi ah ee ku socdo in aa qabato ayaa lagaa rabaa saqiirkaas oo dhan wax allaale iyo wixii saqiir oo dhan oo aa aragtid bilo aadmi la dulminaya haddaa aragtid inaa ka hadashaa lagaa rabaa oo aa qabataa lagaa rabaa marka ilmahaas yar waxaad marka aad dacweyso oo dacwadaada la qaado cunugaagana waa lala hadli doonaa ilmaha kale waalidkood waa notify baa la gelin doonaa oo ilmaha kale ee cunugaaga galaaska la fadhiyo waxaa loo sheegi doonaa waalidkooda lala hadli doonaa oo la dhihi doonaa ilmo waxa arrinta noocaas idinka soo dacwooday ma jirtaa waa la wareysan doonaa wareysi badanaa la qaadi doonaa marka qofkaasna shaqsigaasna marka waxyaabo badan lagu soo helo absolutely haddii ay arrintaas ay ku caddaato sarin ilmo iskuul oo dambe kama u shaqaynayo meeshay doontaba ha ahaato kolley Yurub iyo American aad ooga warqabaa labadaasba sharciyan Yurub iyo North America ama America hata ama Canada hata ama Yurub ha ahaatee intaba lagama yaabano in uu macalinkaas uu meel sarin dambe hadii arrinta kusoo caddaato oo caruur ay joogto in lagu aamino halkaas wuxuu ku beelayaa laysankiisa uu ku beelayaa laakiin maxaana laga rabaa qof allaale iyo qofkay ku dhacdaba you gotta stand up inaa mataqaanaa indhahaaga aa furto oo aa u istaagto oo waxa aa ka qaban karto aa la dartiye mataqaanaa aa ooga qabato adigoo mataqaanaa ilmahaaga dembigii laga galayna raadinayo oo ka jawaabayo ilmo kale oo ka dambeeyana si aan mataqaanaa asagana aan dembi aan looga gelin ayaa labadaas mataqaanaa aa helaysaa xataa arrimaha noocaana markay dhacaan waxaa jira legal aid or lawyer free ahaa jira oo arrimaha noocaana mataqaanaa kaala qayb qaadanayo oo hadhowti marka ay mataqaanaa kiiska ay wingareeyaan oo kaleeto meeshaas ay ka wingareeyaan iskuulkaas universitygaas sadinkaas ay ka wingareeyeen ayaa mataqaanaa qarashkooda oo dhan bixinay marka walaalayaal waa inaa sheelka ay ku jirtaan wax la qarsada ma aha sababta waxa laga yaabaa hadda wiilkaas yar adiga hadaadan weyneynin oo aadan mataqaanaa aadan arrinkaa aadan kor u qaadin oo maanta aadan ooga hiilinin ama caruurta la midka oo kaleeto oo adiga aad tiraahdo waxaanayto yaan laga hadlin yaan la saarin ilaahay subxaanahu watacaala ma dhihin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raalli ka yahay wax allaale iyo wixii qaab daran oo si qaab daran u socdo in mataqaanaa action buuxa in laga qaado oo ah mataqaanaa in qofkii abuse sexual abuse ilmo ku sameynayo oo ilmo ku sameeyo waddanku doonaba ha joogee hadduu yahay waddan islaamna sharciya laga qaadi lahaa hadduu yahay waddan kaleetana oo dowlad dhisan ay tahayna sharciya laga qaadi lahaa meel ay acceptable ka tahay malaha marka meel ay acceptable ka tahay arrintaasi malaha meel alaali iyo meesha ay joogtidba marka walaalaha Soomaaliyeedo iga raali ahaada kulli inta nafteeda u sheegi lahaa idinkan aan idin sheegaya hooyo badanna mataqaanaa aan indhaheeda aan ku soo jeedinaya iyo mataqaanaa qulubteeda aan ku soo jeedinaya xaqiiqdii marka la dhaho ilmo yar oo Soomaaliyeeda wax ku dhaceen wuxuu ila mid yahay ilmahayga kale ila mid yahay waa ilmahayga ilmo walba oo Soomaaliyeed marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilmo walba oo Soomaaliyeed rabbiga samaawaadka waxaan u weydiinayaa hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba inuu Allah subxaanahu wa ta'ala dhammaanteen uu noo xifdiyo meel allaali iyo meesha ay joogaanba marka labadaas qodob aan rabay caawa inaan xabiibaatii walaalahay Soomaaliyeed dhammaantiin aan idinla wadaaga ayaan rabay aad iyo aad aan mataqaanaa idinka raali gelinaya wax yar waxaan u maleysaa toonkayga in uu kacsan yahay laakiin arrintaasaan xogaa aan ka qiirooday allahumma salli ala maxamed meel allaali meesha aan joognana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha nagu xifdiyo hooyo habeen iyo maalinba indhahaaga ha furnaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaashiin umumna